madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in safarkii u horeeyay uu dalka kaga baxo toddobaad kadib markii loo doortay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu safarkii u horeeyay tan iyo markii xilka loo doortay uu ku tagi doono dalka boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo la sheegay inuu ku soo cumraysan doono. ilawareedka ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu Sacuudiga uma bixi doono marka la caleemo saaro, waxaana la sheegay in dadka Soomaaliyeed ugu soo ducayn doono xaramka marka uu cumraysto. safarka madaxweyne Farmaajo uu ku tagi doono Saudi Arabia ayaa ka dunaan doona safaradii hore ee madaxda Soomaalida marka la doorto ay ku tagi jireen wadamada diriska ah. sidoo kale waxaa jira casuumaad rasmi ah oo madaxweynaha la soo gaarsiiyay kaasoo ay kaga timi boqorka dalka Saudi Arabia, boqor Salmaan, oo toddobaad hore taleefanka kula hadlay madaxweyne Farmaajo markii loo doortay xilka madaxweynaha. boqorka Sacuudiga ayaa ahaa madaxdii ugu horeysay ee Carabeed ee toos hambalyo ugu dira madaxweynaha la doortay, iyadoona Sacuudiga uu daneeyo xiriir wanaagsan oo uu la yeesho madaxweynaha cusub. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale lagu wadaa in toddobaadyada soo socda uu ka qayb galo shir madaxeedkiisii u horeeyay tan iyo markii xilka loo doortay, waxaana magaalada Riyaad uu ka qayb geli doonaa shirka dalalka iskaashiga Islaamka. xafiiska madaxweynaha ayaa la soo gaarsiiyay casuumado kaga yimid dalal dhowr ah oo uu booqasho rasmi ah ku tagi doono kadib markii la caleemo saaro iyo marka ra'iisul wasaaraha uu magacaabo, sida ilo lagu kalsoon yahay ay warqad u xaqiijiyeen.